guud law ha ahaato Umar Finish ha ahaato ha ka leexdeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sababtoo ah waxaad ogtiin maanta hadduu soo laabto dibdib ugu soo laabto dalka in dalku gelayo qalalaas siyaasadeed iyo dagaal Farmaajo waxa uu diidantay inuu shaqo waxaan ugu diidanahay waa rajim weeye 26 dhacdo dalka ku sameeyay waxa kamida askar military oo xoog dalka ah inuu inta weeraray siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu lagu dugay kabahiisi ilaahay haddana uu sawaxin baljees ka dhiibin inuu bariir ku laayay dad beeraley inuu laayo cali way kamid ahaayeen nin kasta inuu bariir ku dilay ummadda Soomaaliyeed waxaan uga digayaa haddii la rabo inuu soo noqdo dagaalka 91kii oo ummaddu ay qarax ka dhaco oo dagaal ka dhaco dib ka dhaco nimanka ku hawlan sida lafta gareen ha ahaato cali guud law ha ahaato Umar Finish ha ahaato ha ka leexdeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sababtoo ah waxaad ogtiin maanta hadduu soo laabto dibdib ugu soo laabto dalka in dalku gelayo qalalaas siyaasadeed iyo dagaal waxaan idin cadaynayaa ciidamadii badbaado qaran inaysan wali baabi'in waxaan idin sheegayaa marka koowaad lafta gareen waxaad ogtahay Baaya Bakool waxa ka yimaada in aysan ku filayn adiga xafiiskaaga maareyntiisa waxa duulan ku tahay dadka hawiye ee degan gobolka Shabeellaha Hoose sababtoo tahay baabuurka ayaga leh beerta ayaga leh dukaanka amiran ayaga leh canshuurta ayaa laga qaadaya waxaad ka dhaarisay in ay wax kala xiriir dhibaan baad u diiday xaqiiqad markii la aadan gobolka Shabeellaha Hoose Baaya Bakool haddii abaaru timaado waxa ka yimaadeen la argo waqti canshuurnaysa ka soo bixin hal aseen dab male dukaan male gaadiid ka socdana male waxaad kala dirirtay dhaqaalaha wiyi aad kala dirirayso horta adigu mahdi ragga 60 ama 40 xildhibaanood leedahay haddaad ku tala gashay inaad kula dirirto beelweynta wiyi anigu waxaan ku leeyahay arinta dib uga laabo ka laabo xildhibaanada iyo sanatarada soo saartay haddaad u soo saartay Farmaajo inay dagaalka ay dib u soo geliyaan waxaad ka samartaa canshuurta gobolka Shabeellaha Hoose ka barahaana waxaan leeyahay qof kasta oo hawiya ee joogta gobolka Shabeellaha Hoose waxaan shuureynaysaa si Koonfur Galbeed Farmaajo waxa uu diidantay inuu shaqo waxaan ugu diidanahay waa rajim weeye 26 dhacdo dalka ku sameeyay waxa kamida askar military oo xoog dalka ah inuu inta weeraray siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu lagu dugay kabahiisi ilaahay haddana uu sawaxin baljees ka dhiibin inuu bariir ku laayay dad beeraley inuu laayo cali way kamid ahaayeen nin kasta inuu bariir ku dilay wasiirkii ninka joogay oo ninka la yiraahdo dubbe inuu ku yiri waa alqaacido iyo yiriisu marqaatiya laga yahay dad shacab oo beeraley la laayay oo waliba soo ciidanka military xoog dalka ay laayeen laba dhacdo dhacdada saddexaad wuxuu ku sameeyay gobolka Banaadir hal meel oo kamid ah ee meed laga qaadi karo waa u diiday wax kasto dhacay wuxuu yiraahdo moogi mar saddexaad wuxuu weeraray ninka la yiraahdo Axmed Daaci waa ki weeraray wuxuu weeraray Cabdi Qaybdiid wuxuu weeraray dhammaan siyaasiyiintii Sheekh Shariif iyo wuxuu weeraray ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu weeraray Muuse Suudi Yalaxow wuxuu weeraray Mahad Salaad iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Naadowa wuxuu weeraray oo si khaas u baaqsaday dadka siyaasiyiinta iyo ganacsatada hawiye waxaan leeyahay marka hadduu hadda soo laabto nin kastoo soo amal guud law ha keeno ama ninka la yiraahdo ha keeno lafta gareen amba Umar Finish iyo ragga la sheegay soo saareen al-awwal marka koowaad ee xilka ku qabto wuxuu beegsanayaa siyaasiyiinta hawiye wuxuu beegsanayaa ganacsatada hawiye wuxuu beegsanayaa dhammaantood in aan wax ayaga kamid oo inaysan noolaan ayaguna waxay beegsanayaan inuu Farmaajo xukun qaban uu san noolaan asna marka waxaan uga digayaa dhammaan nin kasta ku hawlan inuu u soo saaro xildhibaanada doorta Farmaajo waxaan uga digayaa inuu soo saaro marka waxa leedahay hadii Farmaajo soo laabto hawiye weeraraya caasimadan inta meel uu laado kala male ummad kale oo asaga rabtana male waayo waxaad ogtahay meesha ugu dambeysay gobolka Gadeeyeed oo soo ka soo jeeday wuxuu ku sameeyay waa loogi waxa la ogyahay 6 iyo 10 saraakiila oo maanta meel lagu sheegan la rabo gabadha Ikraan u dambeysay waxaan leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninka ku hawlanow ka bax ninka ku hawlanow ka bax ninka ku hawlanow ka bax waxaan leeyahay ciidankii badbaado qaran faanoole faro kama qadna Farmaajo intuu doonayo hamayo oo uu doonayo kursiga mar labaad inuu ku soo laabto waxaan idin leeyahay ciidankiina iyo qalabkiina iyo hantidiina iyo gaadiidkiina waxba kala dajinina maamul goboleedkii soo saaree ugu tala gala Farmaajo inuu dad soo saaro
wuxuu ku talagalaa inuu dalka geliyey dagaal sokeeye asaguna uusan maamul goboleed dambe uusan maamulay